igad waxaan u sheegnay oon si cad ugu sheegnay inaanan oggolan Jowhar ayaan si cad ugu sheegnay waxaan nasiib darraa marka annagoo sidaa cad ugu sheegnay in maanta wasaaradda isboortiska inay carruurtiinni ee xaddo war dawlad waxaad haysa miyaan arag waa ma war dawla fagaaraho yaal 4 cunugaa laga qaaday baana lagu yiri magaalada 4na buuliburtaa laga sii marayaa waa 8 reer Jowhara lagu darayaa waxaa la rabaa in banooni lagu dheelo Hiiraan iyo Shabeelle tiimkoodii waa kaas dawladda maxaa gaarsiinayo intaasoo xumaata ama intaasoo dhibaata inay samayso maxaa gaarsiinayo waxaa gaarsiinayo magacii Hiiraana dhibay marka magaca Hiiraan waa inuu baxo haddii kale nolol ma jirto haddii kale dhibaato laga bixi maayo war annagu waxaan nahay ummad jirta waana jiri doonnaa ninkii Hiiraan necba asagay jirta annagu waxaan mar labaad ku celinayaa UN-ku inay diyaaradaheedii carruurtaynay ku xaddo ay dawladda uga adeegto UN maanta maxay soo fadhiisatay waa in diyaaradaheedii la isticmaalo oo carruur islaamiyeed lagu xado oo Jowhar lagu geeyo UN meeshaasoo jooga aawi cadaaladii laga sugaayo UN aawi wanaaggii laga sugaayo maxaa dhacay carruur islaameed diyaarada UN leedahay in lagu xado oo lagu qaado oo Jowhar lagu geeyo oo magac beena loo sameeyo waxaan u arkaa waa nasiib darro inteeda leeg waxaan ku soo noqono ujeeddada loo rabo Hiiraan iyo Shabeelle waa idiin sheega macnaheedu igad waxaan qabno waa u sheegnay kamaanaan qarin waxaan leenahay dadku hadday kulmaan waxna waa laysla garan karaa waxna waa laysla gaanka karaa igad waa mahadsanta inkastoona warkii islehel way naga tageen waa mahadsan yihiin waxaan qabnayna fagaarahaan ka sheegay wax damboon isugu soo noqonaynana ma jiraan oo